dhawaan wuxuu wada hadalna dhex maray yar laygu soo xidhay oo Mareykanka degan oo xogaa diinta ka baxay. Yarkan markaa wuxuu ahaa mulxid, walow aanu isagu ereyga una si rasmi ah u isticmaalaynin, laakiin fahanka iyo fasiraadda uu ka bixinayay aragtida iyo maaragtay aaminaadda uu isagu ku sugan yahay ayaa ah mid soo hoos galaysa dalladda guud ee ilxaadka. Yarkan waxna wuxuu ku ahaa unique oo wax ku gaar ah isaga ayay ahayd oo kaga duwanaa mulxidiin badan oo soo arkay. Midna waa uu kala sinaa, midda ay ka wada sameyn yihiin baan doonaya inaan idiin sheego. Aniga iyo walaalaha aan TikTok isugu wada jirno ee howlahan badan aan ku yar jiraan, waxaa jirta dadka mulxidkaa arrin bay caan ku yihiin, ama khaasatan intan Soomaalida waxyaabaha ay caanka ku yihiin wax ka mid ah haddii shay aad adigu caqli aad uga dhaadhiciso ama aad fahansiiso ama shay aad u fasirto heer uu fahmi karayo amaba aad tusto, waxa uu kaga kalsooni badan yahay inaad tidhaahdo John ama Jason ama Christopher ama Hebel, magac ajnabi ah, nin ajnabi ah oo magaciisu saas yahay ayaa shaygan arkay, ayaa shaygan sameeyey, ayaa idhi harkaygu waa sare joogsaday. Intaas ayuu wax walba uu ku qaadanayaa. Si kale haddaan u dhigo, waxa uu dhegihiisa laabtiisa kuu furayaa marka aad magac ajnabi ah aad ku dhawaaqdo, oo ama reer galbeeda ama Yurubiyaana aduu magacaas marka aad ku dhawaaqdo, dhegtiisu way ku furan tahay. Waxa aad ku odhanaysana suu doono nonsense ha u ahaado, suu doono khuraafaad ha u ahaadee, dhegtiisa iyo laabtiisu waxay diyaar u tahay inay qaadato. haddaad laakiin shay aad indhihiisa ku tusayso, caqligiisa aad isku daydo inaad ku tusto, ama aad isku daydo inaad u sharaxdo fahansi istiraahda, wuu kula gorgortamayaa, wuu kula doodayaa, bal xataa mararka qaar wuxuu isticmaali khuraafaad, waxyaabo aan jirin si uu ula dagaalamo xujooyinka caqligeed adigu soo bandhigayso. waxyaabo khuraafaadoo jirin ayuu aaminayaa. waxyaabaha khuraafaadkee uu aaminayna maxaa ku kalifay inuu aamino? waxaa ku kalifay inuu aamino ninka khuraafaadkan iskale ayaa ah nin ajnabi ah, nin caddaan ah, nin magaciisu uu yahay John iyo Jason iyo James iyo. laakiin hadduu ninka magaciisu uu yahay Yaasiin Maxamed Axmed, haddii ninkaasi uu saa yahay ama adiga aad tahay qofka caqli ahaan shay caqliyana xujo caqliyana u bandhigaya oo la fahmi karayo oo wax u fudaydinaya, wax u sharaxaya, kuma dhageysanayo. marka maxay taasi ku tusaysaa? waxay ku tusaysaa in badan oo ka mid a waxyaabaha dadkan mulxidka sheegta ama yacni yara karaara xagga diiniya markay noqoto, waxyaabo badan oo ka midi waxa weeyaan waxyaabaha loo yaqaano inferiority complex. qofku inuu duuniya uu dareemo, inuu hooseyn uu dareemo, in caqligiisaba uu karaysan yahay, in qofkani uu niyad ahaan iyo qab ahaanba uu jaban yahay, kadibna uu wax kasta suu doono khuraafaad u yahay uu aqbalayo, maadaama ninka idhi uu yahay nin diir cad, magaciisuna uu yahay magacaas galbeediga ah. waxay ku tusaysaa markaa dadkan aan la hadlayno in badan qaarkood sheegta in ay yihiin caqligoogu xor yahay, oo sida hadalka u dhigaane, ama xorriyad maskaxeed ku baaqa, in gaalnimadooda qayb ka midaba ay tahay kiraynta madaxooga ay u kireeyeen dad kale. saas darteed mararka qaar dantu waxay ku odhanaysaa amay fiican tahay ninkan intaad la hadlayso shaydaankan ku dhex jira ee ah ninkan cad, malaha inaad la doodaaba ku fiicnay. mar haddii isaguna uu soo qaadanayo John baa sidan idhi, wax kasta uu diyaar u yahay inuu liqo, malaha John adigoo intood halkan keento John la dooda ayuu malaha ku muslimi lahaa baad isleedahay. way qofkan aad la xiwaartamayso maba ahaba isagu qofka meesha jooga, isagu waa wakiil, wuxuu wakiil ka yahay nin kale ayuu wakiil ka yahay, ninkaas buu caqligiisu u kiraysan yahay. waxaan idin tuso waxyaabo ka mid a waxyaabaha ugu khuraafaadsan ee dadkan ay qaataan. kolley walaalo badan waa ila fahmi maadaama ay arkeen
qofka aan tusaalahan ka soo qaadanayo ma jecli inaan magaciisa sheego. wadaad waxaa jirta aan saaxiibnahay, markaa wadahadal baa dhex maray isagii qofkan gaalka ah wuxuu ku doodayey in shay walba uu bilaa sabab u dhici karo, in shayada qaar ay bilaa sabab u dhici karaan. kadib wuxuu ka yidhi sidee bay bilaa sabab ku dhici karaan? yacni haddaad ila fahmi kartaan, shay baa bilaa sabab dhacaya ayuu aaminay. wuxuu ku aaminay inuu shay bilaa sabab dhici karo, in bilaa sabab la iska dhalan karo, in bilaa sabab adduunyadu iska iman karto, in bilaa sabab rasaas baa kugu dhacday, bilaa sabab ayay kugu dhacday. maaha sababto inuu qof sawirada kugu beegtay, rabay inuu ku dilo ama shil, no reason at all. bilaa sabab bay wax u dhici karaan buu aaminay. inuu bilaa sabab wax ku dhici karaan muxuu ku aaminay? ma aha inuu arkay, ma aha inuu caqli ahaan intuu fikiray ay natiijo caqliyada uu gaadhay ay tahay. no, wuxuu ku gaadhay waayo nin diir iyo dubcad oo magaciisa la dhahdo Krauss, James, John, whatever, Darwin ayaa idhi waxbaa bilaa sabab dhici kara. isaguna hebel mar haddii uu idhi, hebel wuxuu u yahay isaga nebi, hebel wuxuu u yahay isaga ilaah, wixii hebel idhaahdo suu doonaha u caqli darnaato shaygaasi, suu doono khuraafaad ha u ahaadee, waa muqadas agtiisa. bal hataa haddii uu hebel idhaahdo waad waalan tahay, oon ka dhicinba iminka odhaahdan ah waxba bilaa sabab iska iman karaya. ninkii wuxuu ka yidhi markaa okay, bilaa sabab bay wax u dhici karaan. haa, haddii bilaa sabab sidee bay wax u dhici karaan bilaa sabab buu ka yidhi. mogtahay markaasuu ka yidhi bilaa sabab waxay wax u dhici karaan sababtoo ah, yacni isagiiba adeegsaday xeerka sababeynta. marka horena waxa uu la dagaalamayay baa ahaa wax sababeyn la idhaahdo iyo xeer sababeyna inagunba iska dhaadhicina wax jira ma ahy. ma jecli inaan hadallo falsafadeed iyo ereyo fasiraad iyo sharaxaad dhaadheer qaadanay inaan galno, laakiin waxaan in badan iyagana haddii ay imaqlayaan aan doonaya inaan gaadhsiiyo. amay fiican tahay dadow inaad horta idinku caqligiina soo xoraysaan, kadibna idinkoo xora dood aad idinku leedihiin ood fahansantiin aad la timaadaan. waxaan kusoo gabagabeynayaa hadal qofkii yidhi ma xasuusta, laakiin nin baa waxa uu yidhi ubtulina, waxaan ku ibtilaysannahay biman laa yacrifu ilxaadahum walaa islaamana, ku aan islaamkaygana aqoon ilxaadkiisana aqoon. waana tabta ina haysata in anaguna soo aragnay.